بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، واللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhammaantiin baa ku mahadsantii maasha allah waqtigan qaaliga ah. runtiina dee insha allah waxay rajaclaysa maadaama dad ahlu khayr runtii ay tihiin inaan marba runtii yani inay normal iyo wax fiican inoo noqoto insha allah, inaan nafteena iyo dhammaan dadka walaalaha iyo marwalba ina meel camal saa iskugu nimaano kadibna markaas yani khayrka aan is xasuusino. marka runtii taasna wallahi jeclaysa wax kale runtii ma jirto. waxyaalaha kale runtii aan aad ku jeclay meel isku yimaad waxaa kamid ah yani waa tii micni maxaan ku dhahay diintan inoo sheegtay hadii maxaan ku dhahay qoom ama dad koox meel isku yimaadaan wax kalena meeshaas isku imaan ilaa maxaan ku dhahay inay ilaahay iyo diintiisa iyo asaga weynayaan. ilaahay muxuu sameeyaa markuu meeshaas u dhamaato muxaadaradooda iyo 5 daqiiqo ay hadlayaan 6 daqiiqo, ilaahay muxuu ugu abaalgudaa inuu ku dhaho markay micni dhameystaan qura lakum qad badala sayi'atukum ila hasanat, yani ordo iska baxa oo hadda xaafidiina meelihiin aada waxaan ogaadaan xumaantii wixii khaladaadka soo sameeyeen waxaan u bedelo wanaag. subxaanallah waxa laga yaabaa meesha in 20 daqiiqo iska fadhina laga yaabaa, laakiin marka meeshan ka kacnay ilaahay maxaan ku dhahay inoogu abaalgudo in xumaantii aan soo sameeyay ilaahay wanaag noogu bedelo. marka runtii intaas ayaan jeclaysa in ilaahay na arko annagoo asaga ka sheeg ilaahay na arko annagoo meesha wax kale uma fadhina ilaa in asaga diintiisa iyo quraankiisa aan barano. marka intaas ayaan jeclaysa in maanta sameeyna biidnillah, waxaan jeclaysa biidnillah hal ayad inaan iradul marna biidnillah annagoo ku dheeraaneen insha allah. آيات رنتان آخر واحد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا سورة فصلت بكوجرتا. وآد رنت والله أنا قاعد رحان أهان أنا آد وجعل هاي مرة بين رنتي عن شعل إن كسر عشت سمر كاس رنتي إيمان كي يقول دير الجلس سمر كاس رنتي دين يجعل سمر كاس رنتي أو نقول وقف محان كنا إله أسود هذا سمر برنتي أكو عشت مركا هذا مركا إن شاء الله أن تصوص يقول أما رنتي عن وحير كهل وحي عايد عن رنتي كهل أما ما أنتو حربنا دول استغنى بإذن الله. أنا وقتي سوق جبية معنا سوق كوبية runtii aayadan waxaan ka baranaa sidee qofka u noqon karaa muslim fiican. dhamaanteen wadada muslimiin aan nahay qof walba runtii waxa uu jecel yahay Soomaaliya inuu runtii Ilaahay u dhawaado aan noqoto qof muslim fiican mu'min fiican inaan noqoto. yani waxaan jeceshahay in hadda heerka aad joogtid macni iimaankaagu joogo inuu macni uu ka siyaabo si markaas aad Ilaahay ugu dhawaato. marka runtii aayadan waxay noo sheegaysaa laba sifo ay dadkaan leeyihiin oo mar walba ay sameeyaan runtii ay noqdaan dad iimaankooda u siyaado Ilaahay u sii dhawaado. runtii aayadan inoo sheegaysaa arinta kale runtii aayadan aan ka baranaa حواي بإذن الله يعني waxay runtii naga dhigaysaa dad qurux badan. quruxna kama hadlay quruxda banaanka waxa ka muhiimsan quruxda gudaha ka muhiimsan, quruxda akhlaaqda ka muhiimsan, quruxda dulqaadka ka muhiimsan, quruxda naxariista ka muhiimsan, quruxda waxa ka muhiimsan maxaan ku dhahaa yani istuldigda macna tawaduc, yani qofku inuu gudaha ka qurux badan yahay dabeecadaadu inuu wanaagsan tahay waxay ka muhiimsan tahay inaad banaanka ka qurux badan tahay. sadarta rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku duceysan jiray allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsan khulqi. rabbi saad u qurxisay yani korkeyga iyo maxaan ku dhahaa banaanka u qurxisay abuuritaanka saad u qurxisay qof qurux bay dhigto lixaadiis u dhameestiran yahay. rabbi waxaan ka baray in u qurxisid dabeecadeeda. subhanallah. marka wallahi marka aayada runtii markaan ku dhaqano waxa naga dhigaysaa dad gudaha ka qurux badan, yani qof qurux badan oo macaan oo dabeecad macaan baa noqonaysaa. ugu dambeeyna waxay dul istaagi doonaa ilaa waqtin macni ilaahay inoo idmo boontiir waxa jira yani aakhiro dhamaanteen ba aakhiro waa ognahay. dadka inta badan xoogaa aakhiro yani waa meel xoogaa laga naxo laga cabso maxay waxaan ognahay waxyaalaha aakhiro dhici doona ognahay. qof markuu dadka qaar markay aakhiro maqlaan runtii way ka cabsadaan. qof walbana uu ka cabsadaa wax maxay maalin runtii weyn waa. ilaahay baa quraanka ku yiri ya ayuha an-nas taqu rabbakum inna zalzalata as-saa'ati shay'un 'azim. ilaahay baa yawm al-qiyamah maalin fudud ma ah, waa maalin aad weyn. marka qof walba marka runtii uu ka cabsado yawm al-qiyamah, laakiin se xilli waxa imaan doonta qofka muslimka asaga uu jeclaanayo inuu aakhiro aado asoo dunida ku nool. يعني سبحان الله. مركا تاسنا وحير بان كبرنا بإذن الله إن شاء الله. أوكي مركا هراء نقولنا بإذن الله. إلى وحير إن الذين قالوا ربنا الله كوة هاي ربيين والله ربيين والله
arinta cajiibka waxa waay marka qaar ilaahay markuu taqaano ka hadlay dadka muslimiinta wuxuu isticmaalaa kelimad ah innal ladina aamanu wa amilu salihat kuwa ilaahay rasuulkiisa rumeeyay markuu ka hadlay dadka muslimiinta ah marka qaarna ilaahay wuxuu isticmaalaa alladina yu'minuna bil ghaib kuwa aaminsan qaybka aaminsan yaa qaybka aaminsan qof muslim ah qaybka maxaa laga wadaa waxa aadan arkin sida ilaah miyaad aragtay malaa'iktiisi jannadiisi naartiisi wax dhama arag marka dadka muslimiinta markii la tilmaamayo marka qaar ilaahay wuxuu ku tilmaamaa kelimada ah alladina yu'minuna kuwa qaybka aaminsan ama innal ladina aamanu laakiin maanta ilaahay wuxuu ku tilmaamay innal ladina qaalu rabbuna allah kuwa dhahay rabbigeen waa allah marka culimada waxay dhahan arinta meeshan ku jirta waxa waaye maanta ilaahay wuxuu ka hadlayaa muslimiinta kalsoonida badan muslimiinta iimaankooda uu siyaaday waayo markii ilaahay ka hadlay markuu dhahay ilaah innal ladina qaalu rabbuna allah subhanallah macnaheedu waa maxay waa qofka muslimka markuu yaani diyaar u noqdo oo heer uu soo gaaro inuu dhaho mar walba waxa ogaataa aniga rabbigee baa lambar 1 priority waxa iska leh munaanta waxa iska leh amarka ilaahay soo mar walba noloshooda maxay sameeyaan rabbuna allah rabbigee baa horeeya yani wax walba hadii labash isqabato rabbiga hormariyay oo qofka markuu iimaankiisa uu siyaado oo markuu qofka muslimka maxaan ku dhaaruntii uu gaaro in mar walba maxaan ku dhaar waxa uu aaminsan yahay oo diinta ah runtii uu jeclaado kadib markaas uu ku faano oo banaanka uu keeno markaas marka dadka aadan kaas waa dadka waa muslimiinta iimaankooda uu siyaaday kadibna markaas yaani jecel diintooda u qabaan ay garanayaan kama cabsadaan dadku wax dhahay kama cabsadaan banaanka inay keenaan kama cabsadaan runtii in maxaan ku dhaha lagu arko waxay garanayaan waxaan macaankiisa intuu leeyahay subhanallah fadarta aadan runtii waxa ku soo degtay yaani markay ku soo degtay xilli rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisa markay ku noolaayeen runtii asxaabtu waxay u cadeeyeen dadkii dhamaan ka soo horjeeday oo runtii iyagu la kulmay caqabado tiroobe wax walba lagu sameeyay waa la dilay waa la bahdilay xoolahooda laga dhacay wax runtii aan lagu sameeyay ma jirto hadana saasata mar wax dhahayeen waxaan dhan waa ognahay laakiin waxaan ka horeeya amarka ilaahay ka horeeya rabbuna allah rabbigee baa la muran subhanallah yaani gaalada heer wax ku dhahay ma taqaana hatta waa garanaysa yaani bilaal sidii loo galay war bilaal waa la qabtay magaalo dhan baa lagu wareejiyay dhagax baa caloosha weyn loo saaray suxba waxa loo sameeyay ma jirto bilaal waxa dhan waa ka deerinaaye kaliya ka soo noqo xarifta asal wuxuu yiri may rabbuna allah ilaahi yani ahad ilaahi ban aadiya yani iyagu wax walba maxay ka hormariyeen ilaahi ba ka hormarinaya tadarta markii maanta aayadan aan annaka u nimaano say inoo saameynaysaa طبعا الحمد لله ما انت adiga dad muslim noqotid oo ilaahay rumaysid yani cid maxaan ku dhaaruntii de xoolaha ka xalayso oo ku ceersanaysa jamcaala oo guriga ka ceerinaysa oo magaalada ka qaxinaysa ma jirto laakiin balsi kala oo fiirina si aan runtii aayadan inoo taabanayso in qofka muslimka runtii oo yani mar walba priority-ga uu siiyo mudnaanta uu siiyo in ilaahay mar walba lambaran u mariyo okay waxa laga yaabaa mararka qaar had sala anaka waxay noo saameynaysaa manahay muslimiin fiican oo iimaankooda uu siyaaday oo maxaan ku islaamnimada ku faana marka ay banaanka joogaan tusaale marka iskoolka aad joogtid mise jaamacadda aad joogtid haddana aad ogtay waqti salaad ila gaaray waxaad hormaraysaa bilaadanka aragtidooda iyo sida ku arkay wax dhada ma iga daaniyo aniga ma tukanayo maxay la amay dhahan muxuu sameeyaa qofkan ama ila yaaban mise amarka ilaahay baa kula weeno wax walba oo dhaa waxa raayaysa ina qol gashid ina meel raasti kadib waa tukataa yani isfiiri waxa ku garan kartaa heerka iimaankaaga uu joogo haddii runtii aad isku aragtid in maxaan ku dhaca cabsida bilaadanka ay kugu badan tahay hadalka bilaadanka aad uga cabsanaysid waxaad ogaataa yani runtii waxaan dhamaantiin ogaanaynaa in xoogaa iimaankana aad u hooseeyo laakiin haddii runtii salaada ay qiimo weyn kula leedahay maxaa sameynaysaa macalinka waxa ku dhaysaa macalin waxa u baahanahay galaas meel fasal aan ku tukado haddaa weydad maxaa sameynaysaa jaranjarada hoosteeda ku tuko haddaad weydad maxaa sameynaysaa meel adig ku tuko waa markii amarkii ilaah uu kula weyn yahay priority maxaa siisay salaada inay iga tahay subhanallah marka qofka muslimka markii salaada waxyaalo kale iska wato salaada inay ku horeysa waa in amarka ilaahay ku horeeya waa in dhaamar walba rabbi allah rabbigeen baa la barweena ilaahay baa la barweena subhanallah waxa laga yaabaa marka qaar waxa laga yaabaa marka asxaabta aan la joogno oo saaxiibadana aan la joogno waxa laga yaabaa inay sameeyaan wax aan ilaahay raali ka ahayn waxa laga yaabaa qof walaalka ah oo maqan oo hadda aan anaka agteen aan la joogin inay xamanayaan oo sharaftiisa meel looga dhacayo laba ku banaan adigina waa ogtahay ilaahay inuu soo jeclay inaad meesha joogtid maxay la adiga xataa ma jeclid yani diintana maxayna bartay wax nafta la jeceshahay walaalka la jeclo soo marka aad ogtahay walaalka meeshan ka maqan in lagu caaynayo in lagu xamanayo in lagu bahdilayo adiga marka maxaa ku banaan ina meeshan dhaday asxaabteeda iyo saaxiibaan nahay runtii waa jeclaan inaan waqti wada qaadano laakiin sid waxaan aad sameeynaysan
qof kale anaka naga maqan aad xamalaysaan runtii wax fiican ma marka diina joojinta runtii askaga kacaya marka xilligaas maxaa tiraaday rabbi allah rabbiga ilaaha amarka ilaaha homarisa halka dadka marka qaar anaka maxaan sameeynaa marka asxaabta wax sameeyaan iyo haddaan saa ku dhaho amaal ila yaaba ama dhahan oy bashabr maxaa balaa iskaga dhigaysaa maxaa sheekh iskaga dhigaysaa waa iska aamusnaa xantii wixii dhanna waa ruugnaa oo maxaan ku dhahaa waan liqnaa laakiin wallahi haddii iimaankeenu yani yara siyaado haddii iimaankeenu uu siyaado kadibna waxaan macaanka diinta ee qalbiga inoo gal maxaan sameynaa amarka ilaahay hormarnaa asxaabteeda waan jecelahay waxaan u soo baxaynaa waqti wada qaadano laakiin maadaama aad sameynayso waxaan fiicneen anuu meesha ma sii fadhin karo samarka iska kaca samarka boontiga waxa waaye in qofka muslimka heer uu gaaro in mar walba dhaho rabbi allah amarka ilaahay yani ilaahay ba aniga wax walba iga horeeyo waxaan ku soo gabagabeynayaa tusaale yar oo ah waxa laga yaabaa walaasha inay guursanayso ama walaalka inuu guursanayo waxaan ogtahay markaas xafladii in hodho caawa markii meesha la aadayo alaabtii dhacaysa ogtahay jimcaalo gabdhiga wiilal imaanayaan maxaan ku dhahaa la badboodayo adigana waxaa rabtaa inaad noqoto qof muslim fiican baarta inaad noqoto adigana runtii waxaa rabtaa inaad runtii ilaah u dhawaatid baa rabtaa waan ogtahay meeshaas inaysan kuu fiicneen walaashana waxay ku dhahaysaa komiya Khalid oo ogtahay maxaan ku dhahaa aniga adduunka hal maalin baa ka leeyahay maalinta runtii waxa waaye ii sheeg gabdhaha wantaas dhahan yani hal maalin baa adduunka ka leeyahay waa maalinta runtii arooskayga marka habeenkaas waa inay ii timaadid abaa iga qalo aniga xoogaa in macni meesha ma imaan karo gabdha badan baa jooga xoogaa madaxay ka qaqaawiyay marka ani wallahi meesha ay ma fiicna iga daa an naay allah Khalid ii mood abaar tranger maxaan ku dhahay falas build ama kil waxa rabaa ii sheeg sawir guud baara wax kale ma rabo ku oonaysaa laakiin سوال بأولاد أو شيء عشاي سوال برنت أو احترامي سي وأنا مرة أراديسا وحون أتكيج جنب تمشاس وأمر كله أوه الرجال أمر كولا عشانه أتجمع المرسي فمر كقف مسلم كحضرة كاب قروح بدل أو نفسينا مرة بأمر كله أوه الرسية وحكى لنا ورنتي أو معين وصية مركب بونت واحد كسر جبين ومحي إن الذين قالوا ربنا الله وحيد هان ربيين والله أوكي مركب أرنت لا يعني أرنت لا ترنت عن كبر إنه حاوى إن